wararka ka soo baxaya jiida Taleex ayaa sheegaya in ay xalay ka soo guureen ciidanka qaranka Soomaaliland isla markaana ay ku soo noqdeen saldhigyadii ay ka ruqaansadeen markii ay weerarayeen kooxdii Khaatumo ee shirka ka waday magaaladaasi lama oga sababta ay ciidanka qaranka Soomaaliland uga soo guureen fadhiisinadii ay ka sameysteen duleedka Taleex hase yeeshee warar qaar kamid ah warbaahinta ay ka heshay ciidamada ayaa sheegay in dib loo soo raray ciidanka wasiirka madaxtooyada Soomaaliland oo kamid ah wafdigii xukuumaddu ay u tirtay Taleex ayaa sheegay in 150 askari oo deegaankaasi ay ku qarameeyeen degmada kuwaas oo sheegay ammaanka inay sugi doonaan saraakiisha ciidanka qaranka iyo xukuumadda Soomaaliland wali kamay hadal soo guuritaanka ciidanka hase yeeshee waxay u muuqataa in qorshe cad xukuumaddu kaga soo guurtay maadaama ay ka eriday kooxdii Khaatumo ee shirka wadatay nin sheegtay inuu kamid yahay aqoon-yahanka degmada oo saaka BBC-da la hadlayay ayaa Soomaaliland ugu baaqay inay ciidanka ka dulqaado isagoo sheegay in kooxda Taleex inay keenta galeen oo laga awood roonaaday